baradhadu waxay ku jirtaa cuntooyinka ugu muhiimsan adduunka. waana ognahay Soomaaliya inteeda badan dibadda ayay nooga timaadaa. videos hore ayaan markaa waxaan ka sameynay baradhada sida loo soo saaro, gobollada ay ku fiican tahay, xilliyada ay fiican tahay. laakiin videoga waxaan si khaas uga hadlaynaa sidii baradhada ugu kori lahayd weelal, ha ahaato kuwa caag ah ama ha ahaato jawaano. السلام عليكم كسر هذا فيديو كله إذا دارس فهم سومالي أو نقول تلاقلني إنك كيف إنسان دتك سوماليات مقعد علي باشي. فضلا هديك عصبت القناة كان سبسكرايب ده بالك نتابو إنه قدي ولا لها كلا سوماليات سوى فائدستان وضد بدن أوجهته وما سنتين. sidaan sheegnay videoga waxaan uga hadlaynaa sida baradhada loogu koriyo weelasha. Waxa noo diidaya marka malahan inaan ku korino wadankeena ciidda ama inaan ku korino weelal, labadaba wax noo diidaya lama arko aan ugu khasbanaano inaan markasta dibadda ka keensano. Marka inaad ku korisid baradho waa wax aad u sahlan oo weliba xaafadda iyo ciyaalkii ay qayb qaadan karaan oo aan aad u dhib badnayn. waxayna soo saaraysaa cunto raqiis ah oo sahlan oo gurigaaga dhinaciisa kaaga soo baxaysa boos yar oo haysato adigoon weliba aysan kaaga baahnayn shaqo aad u fara badan. laakiin waxaa jira waxyaabo yaryar oo muhiim ah oo u baahan tahay inaad samayso ama aad ka ogaato baradhada inta aadan bilaabin. kuwaas haddaad fahantana sahal ayay kugu noqonaysaa inaad baradho saa'id aad soo saarto xaafadaada aad ka soo saarto. waana muhiim inaan ogaanaa in wadamo badan oo adduunyada ka mid ah xaafadaha cuntooyinka laga soo saarayo inay ka mid tahay food systemka ama wax soo saarka waddanka ayay ka mid tahay. xitaa baaritaamo badan oo la sameeyey food security-ga waddanka wax weyn ayay ka qaadan kartaa haddii qof kasta xaafadiisa uu cunto wixii u awoodo markaas uu ka soo saaro ee aan lagu hadlayn kaliya beeraleyda bannaanka wax ku abuuraysa kaliya. sababtoo ah qof aan wax yar oo boos ah aan ku haysan gurigiisa waa yaryah. markii laakiin qudaar la abuurayo oo aad rabtid inaad weel ku abuurtid ama pot waxa loo yaqaano, midka weyn markaad ku abuurto ayaa markasta wuxuu ka fiican yahay midka yar. sida hadda sawiradan video kaaga muuqdo kale, sawirka saddexaad iyo sawirka labaad oo ah yaanyo iyo barbarooni oo kale, meesha hadda containerka ay ku jiraan wuu ku yar yahay, laakiin markay adhow ay sii weynaadaan ayaa waxa lagu wareejinayaa meel ka weyn ama ciidda ayaa la gelinayaa. xitaa waxaa la isticmaali karaa oo shuruud ma ahan caagadahan qaaliga iyo waxaas in la isticmaalo. weel kasta oo maaragtay tuleel loo samayn karo ayaa la isticmaali karaa oo wax lagu abuuri karaa. waxaa laga yaabaa weliba kuwo qashin noqon lahaa oo dadka dhibi lahaa oo bannaanka daadsalaan lahaa inaad uga faa'iidaysato inaad qudaar ku soo saarto. halkan waxaan abuurayey tusaale waqti ka hor ayay ahayd. sawirkan waxaan abuurayey baradho, midna waxaan ku abuuray weelasha ujeedid, midna waxaan ku abuuray ciidda. laakiin wax soo saar ahaan waxaa fiicneed oo wax badan soo saaray midii aan weelasha ku abuuray. sababta badana ay saas u noqotana waxaa ka mid ahayd in maadaama aan compost isticmaalay kuwii weelasha aan ku abuuray nafaqo fiican ayay haysteen, marka dalag aad u fara badan ayay soo dhaaftay oo xilli dheer xataa aanan soo gadan baradho aan xaafadda u soo gadan baradhada aan abuurnay darteed. laakiin inta aanan ka hadlin sida loogu abuuro baradhada weelka, waxaa xasuusin mudan inaa ogaatiin inaan videos badan ka sameeyey baradhada oo aan uga hadlayno sida beeraleyda ay ku soo saari karaan, xilliyada, gobollada, meelaha laga helo, nooca loo diyaariyo, waxyaabahaas oo dhan aan uga hadalnay. marka saddexdaas video oo baradhada uga hadalna Soomaaliya haddaba fiirsan ayay kana fiirso insha Allah. marka si aad ugu soo saartid weelal baradhada waxa u baahan tahay tallaabooyin inaad qaadid. xitaa xaafadda aad joogtid haddii ay dhagax tahay oo shamiito u yahay, adoo isticmaalaysid weelasha ayaad qudaaro kala duwan oo aad ah ayaad soo saari kartaa. tallaabooyin sahla umbaad maraysaa oo aad ciiddii iyo wixii aad ku habaysanaysid. laakiin xaafad kastoo aad joogtid xataa dabaqa shanaad adoo joogtid ayaa soo saari kartaa qudaartaada qayb un ka mid ah. kolley dabcan waa muhiim inay qorrax helaan oo qayb ka mid ah gurigaaga oo qorrax ay ka heli karaan fiican inaad dhigtid. midda kale waxaa jirta in dalagyada kala duwan ay qorrax kala duwan ay u baahan yihiin. qaar qorrax saa'id ayay rabaan, qaarna qorrax dhexdhexaad ayay dul qaadan karaan. kolley baradhada hadhow markaa abuuraysid waxaa u diyaarinaysaa abuuritaan inta aadan doogin. sida sawirkaaga muuqato kale, ishii markay soo baxdo kale oo diyaar ay tahay, markaas ayaa duugitaanka ku bilaabaysaa. marka ciid noocee ah ayaa isticmaalaysaa si aad u abuurtid baradhadii? Soomaaliya oo kale sidaan ognahay compost fiican kamaniyaal soo saara ma ku ogi, hadday jiraanna waa arrin fiican. marka maadaama compost aadan haysan, waa inaad kaartab fiican oo aad ciiddii uga faa'iidaysanayso waa inaad samaysaa. markii aad dooranaysid
oo sababta u dooranaysa compost inaad isticmaashid waxa weeye in compostigu ay waxyaabo badan ay uga fiican tahay ciidda, sida inay aaryo fiican ay yeelanayso isku wada dhegayn, nafaqo fiican inaad ka helaysid, biyihii inay ceshanayso, nafaqadii inay ceshanayso, waxyaabahaas ayay uga fiican tahay ciiddii caadiga ahayd. laakiin haddii aadan haysan compost, shaqada waa wada kartaa adoo ciid isticmaalaysid. marka sidaan ognahayna ciiddu waa culus tahay oo weliba konteynerada markii lagu shubo ciriiriya isku noqonaysaa, aaryo fiican inay soo geli weysa ayaa laga yaabaa. marka haddii aaba heli kartidba compost, ciid ha isticmaalin. laakiin haddii sida aan sheegnay Soomaaliya kale aan laga heli karin, waa inaad marka isku dartaa labadan ciid oo kale camal, dhoobeyda iyo ciidda bacaadka waa inaad isku dartaa. markaas waxay keenaysaa inay ciiddii xoogaa furfuranto, hadhowna biyihii aysan meesha dhex fariisan oo ay gudbaan, aaryana ay soo gasho ayay keenaysaa. marka waa inaad labadan isku qastaa oo isku dartaa oo ay furfur u noqotaa ciiddii aad ku shubaysay weelka ama jawaanka wixii aad isticmaalaysidba. sidoo kale waxaad isticmaali kartaa saxarada xoolahoo kale, iyadana nafaqana waa ka helaysaa, ciiddiina waa furfuraysaa. marka saxaraha xoolahoo kalena waa ku dari kartaa haddii aad haysatid. dabcan maadaama ciiddii ay nafaqadii ku yaraa karto, geedkiina aysan suurtagal u ahayn inuu xididkii ciidda fog u dirsado, waxaa ku qasban tahay haddii aadan saxaro fiican ama compost aadan ku shubin, inaad bacrimin yar aa ku shubto. iyadoo raqiis ayaa la gadaa, waxay soo gadatid inaad hadba wax yar oo qiyaas ah aa ku shubto si geedkii nafaqo badan uu u helo oo koritaankiisiina u wanaagsanaado. sidoo kale midda muhiimka ah oo lagaa raba inaad samaysid waa inaad biyo fiican siisid. weliba baradhadoo kale biyo fiican ay u baahan tahay oo isa geedkii qalalin. weliba markii maaragtay ay samaysmayso tuberkii, markii uu samaysmayo aad ayay muhiim u tahay inaad biyo siisid. sidoo kalena waa muhiim inaad ogaatid in maaragtay xididkii uusan hoos u dirsan karin oo uusan dhaafi karin containerkii aad meesha dhigtay. sidaas darteed waa inaad la socotaa waraabka oo aysan biyihii ka qalalin markasta. waxaa kaloo isticmaali kartaa jawaano, sida aan niri hadda jawaanadan oo kale waxaa ku baxaya waa yaanyo, laakiin baradhadana waa ku abuuri kartaa sidaas oo kale. siday kuwan u gaaban yihiin kale u gaabinaysaa. hadhow markii ay soo weynaato baradhadiiba, saan gadaal kaa sii doono, jawaanka kor ayaa u furfuraysaa, ciid ayaa ku shubaysaa hadhow ilaa jawaankii u buuxsamo. ujeedada marka taas laga leeyahana gadaal ayaan ka sheegi doonaa, waa arki doontaa. marka waa kana hadda tusaale ahaan weelka noocaan oo kale haddaan tusaale usoo qaadano, waxaa ku qasban tahay inaad u samaysid duleelo, meel ay ka neefsato ciiddii, iyo meelo hoose oo ay biyihii ka baxaan oo aysan u fariisan, iyadana waa u baahan tahay. weelka haddii markuu 40 litir oo kale weel qaadoo kale uu yahay, 2 ama 3 xabo oo baradho ah ayaa ku abuuri kartaa. laakiin hadduu weel yar yahoo kale waxaa ku abuuri kartaa 1 xabo baradho ah. haddii aad marka baqaysid inay kuusoo bixi weyso kale camal, 2 saa'id oo kale, 1 xabo saa'id oo kale waa geli kartaa, hadhow xabad ka mid ah waa siibi kartaa si xabadda kale u harto. waxaa kaloo muhiim ah inaad baradhada isheeda aa kor usoo jeedisid markii aad abuuraysid, si hadhow ugu sahlanaato inay kor usoo baxdo. marka qiyaastan oo kale ayaa la rabaa in geedkii uu xididkiisii meesha hoose uu kasoo bilowdo ilaa uu kar caleenteedu ay kasoo baxdo. marka qiyaastii 8 sentimitir ama 4 meeloodoo meel ayaa waxaa ku shubaysaa marka ciidda kowda hore inta aadan mirta saarin. kabacdi ayaa markaas baradhadii halkaasaa dhigaysaa. kabacdi ayaa waxaa samaynaysaa ciid yar oo 10 sentimitir 5 sentimitir u dhaxaysa ayaad dusha ka saaraysaa oo aysan qorraxdu taaba karin baradhadii. kabacdi 10 sentimitir oo kasta oo baradhadii ay soo baxdaba ciid ayaad hoos dhigaysaa. ilaan waa ognahay, hore ayaan u sheegnay, baradhada haddii ay qorraxdu taabato mirteedii cagaar ayay noqonaysaa, waxbana ma gasho. marka saan ayaa ku wadaysaa. qayb kastoo marka ciiddaha aad samayso, xidid cusub ayaa kasoo baxaya, baradho cusub ayaa ku koraysa, ilaa marka meesha ugu koraysa ee weelka aad gaarsiiso baradhadii. waa kana iyadoo baradhadii aan dhigay, kabacdina ciid yar aan dusha ka saaray ilaa ay saan u dheeraato. marka hadhow inay soo bislaatay oo baradhada diyaar tahay waxaa ku ogaanaysaa inay maaragtay jaalle ay noqdaan caleentii, oo aad dareemaysaa geedkii oo caleentiisa jaalle noqotay oo dhintay. kabacdi insha allah saas ayaa kula soo baxaysaa. inta bilowda diyaar ku noqotay iyo waxaasoo dhanna videos kale ayaan hore uga sheekaynay. rajaynayaa inaad ka faa'iidaysteen videogan. intaan video kale kulmi doono, asalaamu calaykum waraxmatullah.